السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته walaalyaal kusoo dhawaada darsigeena maanta darsigeena waxaan uga hadlaynaa waxa loo yaqaano return statement waxaa la isticmaalayaa marka rabto inaad value ama natiijo aad soo celiso return statement waxa loo jeedo halkaan ayaan ku sharxaynaa hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala garaad noqdo horey waxaan soo baranay sida function adiga ku gaar ah aad u isticmaali lahayd casharkani noogu dambeeyay maanta idan waxaan sameynaynaa ama meeshan aan ku sharxaynaa waxa loo yaqaano return statement markii la joogo Python programming language su'aasha meeshtaal waxay tahay sidee lagu abuuri karaa function oo soo celinayo value haddii aad sameynayso tiro ama calculation markaa sameynayso oo aad rabto inaad soo celiso result ama natiijo aad rabto inaad soo celiso waxaad isticmaalaysaa wax loo yaqaano return statement function-ka aad abuurtay haddii aad rabto qof walba isticmaalayo qofkaas inuu soo celiyo ama xisaabta uu geliyaba inuu natiijadeeda helo ama calculation uu ku sameeyo haddii rabto waxaad isticmaalaysaa wax loo yaqaano return statement aan bilowno markii ugu horeysa aan define gareyno function ama function aan abuurno waxaan sameynaynaa sida aan horey u soo aragnayba markaan function abuurayno waxaan isticmaalaynaa def ayaan isticmaalaynaa oo lagu soo gaabiyay defining then waxaan abuuraynaa function ayaan abuuraynaa def square then waxaan abuuraynaa halkaan waxaan ku pass gareynaynaa parameter oo number ah parameter ayaan ku pass gareynaynaa oo number ah halkaan marka waxaan leenahay return ayaan isticmaalaynaa oo waxaan leenahay number times number ayaan waxaana laba number inaan isku dhufno marka number times number ayaan leenahay then halkaan waxaan sameynaynaa resultga laba number hadii la isku dhufto result ayaa loo baahan yahay marka waxaan leenahay resultga wuxuu la mid yahay 4 aan dhaar marka square 4 then kama dambeys waxaan leenahay noo soo print garay resultga marka halkaan sida aad ugu jeediinba waxaan ku define gareynaa waxaan abuuranay function oo square la yiraahdo ayaan abuuranay halkaan waxaan ku pass gareynay ama ku gudbinaynaa parameter waxa loo yaqaano oo sidaan hore ugu soo hadalnayba then halkaan waxaan rabnaa in natiijada ay soo baxayso ay noqoto laba number oo la isku dhufanayo number lagu dhuftay number waxay noqotaa in la soo celiyo marka halkaan waxaan rabnaa natiijada square oo waxaan rabnaa inay noo soo baxdo 4 lagu dhuftay 4 inay noo soo baxdo rabnaa aakhir waxaan soo print gareynaynaa natiijada result then aan run gareyno programkeena waxaan leenahay run ujeedin waxaa noo soo baxday maxay 16 ayaa noo soo baxday 4 times 4 waa 16 marka su'aasha meesha taala waxay tahay meesha isticmaali lahayn return statement meeshan isticmaali lahayn ma isticmaali karnaa print ilaa hore waa soo isticmaalnay print ma isticmaali karnaa aan probeyno marka waxaan leenahay halkaan waxaan dhahaynaa meeshan oo return qoran waxaan leenahay print halkaan waxaan isticmaalaynaa meeshan return aan isticmaalaynaa waxaan isticmaalaynaa print ayaan isticmaalaynaa kama dambeys halkaan tan waxaan ku pass gareynaynaa halkaan ayaan ku pass gareynaynaa print waxaan leenahay square 4 result marka meesha iska tirayna dan haddaan run gareyno programkan maxaad malaynaysaa inuu soo baxay aan fiirino run oo jeeda marka ugu horeysa waxaa noo soo baxday maxay 4 times 4 waxaa noo soo baxday 16 ayaa noo soo baxday line-ka labaad waxaa lagu soo daawacay none marka maxaa loola jeedaa none maxaa meesha keenay Python interpreter-ka ama programkan aan isticmaalayno markii code-kan markuu run gareeyo meeshan oo tan hadduu run gareeyo square function-kan markuu run gareeyo first markuu horeyso wuxuu run gareynaa kan uu run gareynaa square-kan uu jagareynaa oo wuxuu isku dhufanaa 4 ayuu isku dhufanaa square function-kan ayuu kusoo bilaabaya ama meesha oo xagaha wuxuu u gudbayaa halkan ayuu u gudbayaa function-kan ayuu u gudbayaa markaas kadib wuxuu soo print gareynaa number-kan ayuu soo print gareynaa number lagu dhuftay number ayuu soo print gareynaa marka waa reason-ka marka haddii laba number ayuu isku soo dhufanayaa
then waxa waaye 4 times 4 waaye halkan marka wuxuu kusoo bandhigayaa 16 ayuu kusoo bandhigay natiijada 16 ay noqonaysaa marka sababta keentay nan in halkan lagu soo daabaco ayaa waxay tahay haddii aanan isticmaalin wax la yiraahdo meeshan haddaanan isticmaalin ama return statement haddaan meeshan aan ku isticmaalin default ahaan Python programming language wuxuu soo bandhigayaa nan ayuu soo bandhigayaa so haddaanan isticmaalin waxa la yiraahdo ama halkan haddaanan isticmaalin return haddaanan isticmaalin Python ka si default ah wuxuu noo soo celinayaa nan ayuu noo soo daabacayaa line labaad nan waxa waa object waayo oo metelayo ama sheegayo in meesha value ka maqan yahay wuxuu la mid yahay waxba ayuu la mid yahay marka tusaalahan hadda aan isticmaalnay meeshan aan isticmaalnay waa u jeedeenba ma haysano wax la yiraahdo return statement ma isticmaalin default ahaan Python programming language waxay noo soo daabaday nan ayuu noo soo daabaday waxba ayuu noo soo daabaday waan sida caadiga ah ayaa saas ah haddaan isticmaalin return statement samir waxay noo soo daabacaysaa nan ayay noo soo daabacaysaa meesha la isticmaali lahaa return haddaan isticmaalno print oo arabno value in isku celiyo then marka ugu dambeyso waxay noo soo daabacaysaa nan ayay noo soo daabacaysaa ama function kan halkan aad u jeedin oo square function kan markii la soo daabaco kadib value nan kan wuxuu u laabanayaa oo halkan idinka muuqdo wuxuu u laabanayaa oo u gudbayaa si argument ahaan u gudbayaa print function kan kadib wuxuu soo print gareynayaa square kan ayuu soo print gareynayaa marka waa taas sababta keentay in line labaad lagu soo daabaco nan lagu soo daabaco sababta keentay ee taas marka halkan waxaan ka baranaynaa laba waxyaabood ayaan ku baranaynaa tan ugu horeysa default ahaan Python programming language markii la joogo functions oo dhan waxay soo celinayaan nan ayay soo celinayaan ama waxba ayay soo celinayaan haddaanan isticmaalin return statement haddaanan isticmaalin haddii function aan haysano function kaas oo aan rabno inuu tiro isku daro ama isku dhufto ama wixii noqotaba waxaan isticmaalaynaa return statement ana isticmaalaynaa marka labadaas ayaan ka faa'iidnay maanta darsigeena soo intaas ayuu ku koobnaay marka aad iyo aad u mahadsantiin channelkeena haddaa ku cusub tahay subscribe iyo like saaxiibkaaga la wadaag aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu